mogtahay inay kuwan yihiin shanta dale adduunka ugu beenta badan kaalinta koobaadna ma rumaysan doonti dalka ku jira. 5 Iran. wararka laga sii daayay Iran waxay inta badan yihiin dacaayado ka dhan ah dawladaha reer galbeedka. dawladda Iran waxay mararka qaar dadkeeda u sheegtaa waxyaabaha aan la xaqiijin karin sida in milatarigoodu uu ka hormarsan yahay kuwa kale amba in Mareykanku uu ka baqayo awoodooda. 4 Mareykanka. dawladda Mareykanku waxay adeegsataa dacaayado si ay u saameyso wadamada kale gaar ahaan xilliyada dagaalada sida Afghanistan iyo Iraq oo kale. sidoo kale waxay mararka qaar ka dhigayaan waxyaabo aan run ahayn mid u muuqda inay yihiin xaqiiqo sida in CIA-du ay markasta guuleysato amba Mareykanku uu yahay dalka ugu cadaaladda badan adduunka. 3 Shiinaha. dawladda Shiinaha waxay qarinaysaa wararka runta iyo wax walba oo ka hor imaan kara siyaasadooda. sidoo kale waxa la maamulaa oo la xakameeyaa internetkooda. wararka xasaasiga waa la baabi'iyaa waxaana loo dhisay system la yiraahdo Great Firewall of China si loo maamulo waxa ay dadka Shiinuhu arki karaan oo wax walba oo arkayo qofka Shiinaha ku nooli waa wax ay dawladdu raali ka tahay uun. 2 Ruushka. dawladda iyo warbaahinta dalkani waxa lagu eedeeyaa alaaba inay faafiyaan wararka beenta si ay u maran habaabiyaan dadkooda iyo kuwa caalamka. wadanka Ruushku wuxuu si joogta u isticmaalaa warar aan run ahayn si ay u saameeyaan siyaasadda caalamka sida kiiskii faragelinta doorashooyinka Mareykanka ee sanadii 2016. 1 North Korea. dalkani waa dalka adduunka ugu beenta badan uguna daahsoon waxayna dadkooda ugu sheegaan waxyaabahan xaqiiqo ahayn sida in hogaamiyaashoodii hore ay lahaayeen awoodo khaasa. tusaale ahaan in Kim Jong Un aabihii oo lagu magacaabi jiray Kim Jong Il uu ku dhashay buur lagu magacaabo Beketu loona dhalay si mucjiso ah. sidoo kale ma jiraan warar xaqiiqo ah oo ka imaanaya gudaha dalkani waxayna dawladdu dadka ugu sheekaysaa been badan oo ku saabsan horumarka dalka. haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo waa kee dalka ugu beenta badan adduunka fikirkaaga qaybta commentiga hoose iigu reeb. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.